raclug uma dhutiyo hora loo soconaya hora loo soconaya hawshan u taganahay horiyarina habsaamir mayse hora loo soconaya hora loo soconaya hora loo yidhi hangara raclug uma dhutiyo hora loo soconaya hora loo soconaya uma dhutiyo hora loo soconaya hora loo soconaya hadan qadnayo deegaankeeni hirgalay hawshan u taganahay horiyarina habsaamir mayse hora loo soconaya hora loo soconaya raclug uma dhutiyo hora loo soconaya hora loo soconaya hora loo yidhi hangara raclug uma dhutiyo hora loo soconaya hora loo soconaya hadan qadnayo deegaankeeni hirgalay hawshan u taganahay horiyarina habsaamir mayse hora loo soconaya hora loo soconaya raclug uma dhutiyo hora loo soconaya hora loo soconaya hora loo yidhi hangara raclug uma dhutiyo hora loo soconaya hora loo soconaya haddii alla dheera tahay saan lagu soo dhaweey adeer macaan oo dadkaagan ku jecel yihiin hora loo yidhi hangara raclug uma dhutiyo hora loo soconaya hora loo soconaya waraa mustaqbalka madaxa iga dhigaba aniga xildhibaan ama wax iga dhigaba ya si oo intaanu gaaray ay soo dhaweeyaan horiyarina habsaamir mayse hora loo soconaya hora loo soconaya hora loo yidhi hangara raclug uma dhutiyo hora loo soconaya hora loo soconaya hora loo yidhi hangara raclug uma dhutiyo hora loo soconaya hora loo soconaya hadan qadnayo deegaankeeni hirgalay hawshan u taganahay horiyarina habsaamir mayse hora loo soconaya hora loo soconaya
maanta oo ay sabti tahay taariikhdana 28 ay tahay waxaa jirta insha Allah taala meeshaan xafladan odayaal iyo dhalinyaro dhammaantooda waxaan soo dhaweynaynaa Hildhibaan Qaasim Maxmed xafladan tan hadda kulay waxa waaye waan soo guda gashay waxa waaye xaflad fiican kale oo lusu tabaabushaystaan samaysanayna insha Allah tan waa Hildhibaan isbarasho soo dhaweyn insha Allah taala maanta ay soo dageen waxa way ahmiyada iyo waxa way kala gaceelka uu qabo darteeda waxa way ma soo fadhiisanin meeshii ku soo dageen inuu tolkii iyo dadkii soo arko iyo waxa way baabuurkii hor ugu soo gudbay marka waxa way insha Allah taala Hildhibaan waxaan leenahay soo dhawaansho wanaagsan insha Allah taala dageega Hildhibaan koonfur galbeed oo hadda inay una soo dhawayna diyaaran ana haddana way sii rajayaan ilaa maamulka meeli in ka sareeyo hebagno nunku nagado oo haddana inta iska dhawayna rajadaas lena maanta farhadaana mar soo koobo karo munaasabad kooban oo aan ku soo dhaweynayno Hildhibaan Qaasim Maxmed Abuukar oo kamid ah xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo maanta degmada Walaweyn ugu la sugan waxaan rajaynaynaa xildhibaanka hawshii uu imaaday oo bulshada Soomaaliyeed uu hayay bulshada koonfur galbeed uu hayay inuu Ilaahay u fududeyn doono munaasabadan maanta waxay ku kooban tahay soo dhaweyn aan xildhibaanka soo dhaweynayno magaalada naas soo baxday maanta soo dhaweynta xildhibaanka waxaan leenahay mudan xildhibaan soo dhawow anagoo ku hadlayna dhalinyarada degmada Walaweyn waxaan leenahay mar labaad mar saddexaad soo dhawow xildhibaane bulshadaada iyo shacabka xildhibaanku ku soo dhawow maantay waxaan iskugu nimid xalfadan inaan ku soo dhaweyno walaalkeena Hildhibaan Qaasim Maxmed Abuukar oo run ahaantii maanta in badan aan sugeynay oo maanta afalillahi alxamdu isagoo nabad qaba iyo annagoo nabad qabna dhammaan waxaa si wanaagsan loogu soo dhaweeyey degmada Walaweyn waxaan leenahay Hildhibaan soo dhawow hadal wixii aan hadli lahayn kolba waxa waaye waxaa hadlay ugaasideena dhalinyaradeenna insha Allah taala waxaan leenahay mudane Qaasim soo dhawow howshaadii Allah ku garab galo annagana waxa ku leenahay mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawow unaga iska dhagno soo dhaweyn diiridle iyo Hildhibaan si ka dhawaayaan mudane Hildhibaan si ka dhawaaw degmada aad isugu jeed oo loolanka aad ka galle codcay iyo magaashay ka guuleysatay farxadda soo dhaweynta xildhibaankeena guud ahaan xildhibaanka shanta caleemood beeshii shanta caleemood waxaan leenahay xildhibaan soo dhawow waa degmadaadii degmada aad soo jeeday waxaan leenahay soo dhawow xildhibaane maanta waxaan aad ugu faraxsanahay dhammaan odayaasha dhaqanka culmaa udiinka waxgaradka dhalinyarada haweenka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa soo dhaweyntii maanta lagu soo dhaweeyay degmada Walaweyn gobolka Shabeellada Hoose anigoo ah xildhibaan ka soo jeeda degmada aad iyo aad ugu faraxsanahay soo dhaweyntaas aadka u weyn oo la sameeyay run ahaantii muddaan qorsheynayna inaan xildhibaanka u noqdayba degmada inaan imaado dadkii degmada inaan la kulmo run ahaantii maanta Ilaahay waa suurtageliyey wax walbo Ilaahay ayaa qora maantana waxaan ku faraxsanahay wajiyada quruxda badan ee hor fadhiya dadkii deegaanka ay u dhan yihiin haddana dadkii deegaankii oo midaysan oo aan qalalaasi iyo qabiil iyo waxaas ku jirin oo midaysan ayaa si fiican loogu soo dhaweeyay degmada waxaan salaan idinkaga wadaa madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagaraan ka gudoomo salaantaas sidoo kale wafdigu uu balaaran yahay golo wasiiraha ku jiro taliyaal ku jiro oo ciidanka ah waxaan u nimid mashaqadii deegaankan ku soo noqnoqotay inaan xalkeeda ka gaarno degmadiina sidii loogu sameyn lahaa nidaam iyo kala dambeyn dadkan ay u heli lahaayeen nolol sida caafimaadka waxbarashada markaan soo degtay oon garoonka Beledweyne ku soo deganay waxaan rabay inaan dadka qaar waxay dhaheen xilligan lama baxay iska joog markaas waxaan ma joogi kari dadkii aan matalayay ayaa wadooyinka taagan dadkii wadooyinka taagan
oo raba inay isoo dhaweeyaan inaan meeshii xiradii baldogle ku haro waa keeni waaye waana suurtageli weyse marka waxaan ku faraxsanahay maanta degmadii aan ka soo jeeday inaan imaado run ahaantii aniga degmadaan ma ku dhalanin waxaan ku dhashay Afgooye haddana degmadii dhowr jeer aan imaaday shaqooyin badanna waa ka qabanay marka waxaan rabnaa inaan ogaano baahiyaha dhabta ah ee degmada ka jiro si baahiyahaasi caafimaadka ka mid ah maanta hooyadii uurka markay dhasho ama ay umusho qaarkood way umul raacaan ayadoo problemkana inkastoo qadarta ilaahay xaggiisa ay ka qoran tahay haddana waxay u dhintaan dhiigbaxay u dhintaan maanta waa wax laga xumaado magaalada Muqdisho 90 kilomitir noo jirta in hooyo Soomaaliyeed ay dhiigbax ugu dhimato inay dhiigbax ugu dhimato degmada Wallaweyn iyo tuulooyinkeeda salaanta adnoo kushaanti gudoomiyaha madaxweynaha oo gudooni mid la ayaa wadskii Maryaana degmadan Wallaweynka baahanta xilwaan degmada in shaqeeyo nagato iyo ambaana macna waxyaabo badan degmadan oo hadba adab soo hadal qaadi oo degmadan in isbitaal ambaanto in waxbarashada aad ku liidito dhalinyaradana oo macna shaqo la'aan macna inta badanto kulay xilwaan intii karaanka dadaal kulay intii unnakii la garab galaan dhalinyaradii degmada diiwaan mar walba ma kiiteegiyo in degmada horumarintii adeeg ku shaqeeyo wala adalkiin dooradii ilkii magacaab in adeeg ku noqoto ninkii hormuudkii oo walaalin dhiibi indayacna degmada way tan iskii dhawaayaan mar walba iskii dhawaayaan kiin baahan nin baahant kulay fali tafadal mashkuuran hora loo yidhi hangara raaclug uma dhutiyo hora loo soconaya haddaan hana qadnayo deegaankeenii hirgalay hawshannu u taaganahay horyarina habsaamid mayse hora loo soconaya hora loo yidhi hangara raaclug uma dhutiyo hora loo soconaya hora loo yidhi hangara raaclug uma dhutiyo hora loo soconaya haddaan hana qadnayo deegaankeenii hirgalay hawshannu u taaganahay horyarina habsaamid mayse hora loo soconaya hora loo yidhi hangara raaclug uma dhutiyo hora